halkani waa page-ka YouTube-ka aynu ku leenahay wariye Cabdishare waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maanta iyo dunida qodobada aan ku soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha oo bartiisa Facebook ku shaaciyay in uu xanuunsan yahay wasaaradda caafimaadka Puntland waxa ay sheegtay in kiisas cusub laga helay magaalada Puntland sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu ka degtay magaalada Beledweyne waxaan kaloo soo qaadan doonaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka jawaabay hadal kaga yimid xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle qodobada ciyaaraha aan soo qaadan doono waxa qayb ka noqon doona kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay u dhaqaaqi doontaa xidig u ciyaara kooxda Manchester City iyo waxaan kaloo eegi doonaa sidee buu yahay xaaladda guud ee Timi Werner inaadiga Liverpool sidee ay ka yeeli doontaa dhanka kale qodobada dibadana waxaan ku soo qaadan doonaa wasaaradda caafimaadka dalkaas Shiinaha ayaa sheegaysa in uu hoos u dhac ku imaanayo xanuunka coronavirus-ka qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin haya aan ku horeyna wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku shaaciyay in uu xanuunsan yahay xilli wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay shaacisay in uu sare u sii kacayo xanuunka COVID-19 ama coronavirus-ka hadalkan Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha ayaa waxa uu imaanaya iyada oo ay dad badan ay u geeriyoonayaan xanuunka caabuqa coronavirus-ka kaas oo ku soo badanayo dalkeena Soomaaliya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed ayaa saacada ka hor ku soo qoray bartiisa Facebook in xanuun uu hayo balse ma uu saacadeenin xanuunka oo xilligan uu la xanuunsanayo iyo waxa xilligan ku dhigan iyada oo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay sare u sii kacayso kiisaska caabuqa coronavirus-ka oo ay u geeriyoodeen dad aad u fara badan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya mudane Fawsiye Abiikar ay shaacisay in ay ku dhowdahay in dadka u geeriyoonaya caabuqa coronavirus-ka ay gaarto kun qofood sidoo kale Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in loo duceeyo xili uu sheegay in uu xanuunsan yahay waad ogtihiin gudaha dalka Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa ka jira xanuunka caabuqa coronavirus-ka iyadoo isbitaalka Martini ay maalin walba ay u geeriyoonayaan dad aad u fara badan xanuunka caabuqa coronavirus-ka asxaabtana daawanayso waxaan idinka codsanayaa in aad u duceysaan walaalkaas xanuunsan oo sheegay in uu xanuunsan yahay balse aan la ogeynin cudurka imika haya waxaana laga cabsi qabaa caabuqa coronavirus-ka laakiin waxa uu codsanayaa in loo duceeyo fadlan haddii uu barnaamijkan uu ku soo gaaro hu duceey like noo saar subscribe siina share garay aad ayaad u mahadsantahay daawashada iyo la socodka barnaamijka anigoo Cabdishare ayaa idin soo tabinayay inta aan dib ku kulmi doono barnaamij aankan oo kale waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo Ramadaanul Kariim